bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan halkan kasoo jeedin doonaa cashirka loo yaqaano male urethral structure. waxaan ka hadli doonaa waa ilaa 5 qodob. waa maxay male urethral structure? maxaa loo yaqaanaa? lambar 2, calaamadihiisa waa maxay? maxaa sababi karo? sideen ku ogaan karnaa iyo qaabkeen u daweyn karnaa? intaan cudurada loo gaarin ka hor, waa maxay urethraha? maxaa la dhahaa? urethraha waxaa waaye waa tubada ka dambeysa bladderka ama waxa loo yaqaano kaadi haysta. urethraha ayaa 2 qaybood ah. waxa loo yaqaano prostatic urethra ama Soomaalidu waxay u yaqaan prostatada qaybta kamida tubadaas, iyo penile urethra. marka waxa ugu badan oo structure-ka ku dhaca waa penile urethra. markii laga hadlayo wax sababo, maxaa sababi karo ayada? waxa sababi karo u badan trauma, in maarkino dhaawac qofku uu ka gaaro tubadaasi. gaar ahaan qofka waxaa laga yaabaa isagoo baaskiil ama wax wada ay jug ka gaarto, kadibna meeshii dhaawac inta gaartay isku raysato oo scar uu ku sameysmo. in inflammation uu ku sameysmo meeshii, in tubada inflammation ay ku dhacdo, gaar ahaan in nimanka meesha ugu horeysa oo maarkino ibta binaalka xuubkaas in infection ku dhaco, afka urethra uu isxiro oo meeshaas scar uu ku sameysmo. iyo in congenital problem ay qabaan, sida gaar ahaan cudur waxaa jiro oo urethra gudaha ku sameysmaya, ama in qaliin qofka hore loogu soo sameeyay oo gaar ahaan qaliimada TURP ama cystoscope, ama qofka hore procedures in urological procedures inta hore loogu soo sameeyay ay sidaas wadadii maarkino scar ugu sameysatay ay isku xirtay. maxaa ku diagnose gareyn karnaa? diagnosiskiisa haddii la fiiriyo waxa ugu badan most common use waxaa waaye in urethrogram la sameeyo ama x-ray, in maarkino lagu duro diet, inta lagu duro la ogaado meeshay wadada ka xiran tahay. waxaa kaloo la sameyn karaa wax loo yaqaano cystoscope ama urethroskop, in maarkino wadadii scope la qaato, la arko visionkiisa caadi loo arko, in maarkino meeshay ka xiran tahay wadada la ogaado. qaabka loo daweeyo, qaab badanaa loo daweyn karaa. kow waxaa optiona jiro qofka horey haddii maarkino uu qaliin usoo sameeyay, gaar ahaan qaliimada TURP ama post TURP structure uu qabo qofka, waxaa la sameyn karaa metal dilators. ugu jeedin meesha metalkaasa jiro, ilaa sizes kala duwan uu leeyahay. sizekaasa waxaa la sameynaa qofka mu baahno operation, waxba mu baahno oo imaana size kala duwanaa gelinaysaa. haddii maarkino qofka horuusan operation u sameyn, qaab dhalinyaro oo kale uu yahay, waxaa jiro wax oo maarkino hadda procedure cusubaa jiro. saa uga jeedin meeshaan hadda waa balloon dilator, waa kan balloonkan ujeedid waxaa soo saartay shirkadda Boston. balloonkan aniga hore aan isticmaalay, hadda case-kana ujeedid waa wiil dhalinyaro 30 jira. meeshaan uga jeedid hadda urethraha xogaa waa cariiri, marka waxaan isticmaalay bahalkan ujeedid. marka kan wuxuu awood leeyahay in maarkino in wire guide wire ka horeeyo, kadibna dilation lagu sameynaa, wadadana toos isku furmaa. ilaa size-kiisana waxaa waa 24 afar waaye. bahalkan success-kiisana waxaa waa ilaa 78% waaye. waxaa kaloo jiro in maarkino direct vision urethrotomy wax la dhaho, oo ah in maarkino scope uu afka knife ka wato oo kale, in maarkino meeshii lagu jaro. badanaa dhakhaatiirta waxay isticmaalaan inay ka jaraan 12 degree oo kale inay ka jaraan, si maarkino wadadii u furmato. success-kiisana waxaa waa ilaa 90% waaye. marka cashirkeenna halaas uu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. isbuuc dambe insha